wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada kala gedisan ee waddanka Soomaaliland lagu tixi doono darajooyinkii ay ciidamadaasi lahaayeen wuxuuna wasiirku muddada ciidamada darajooyinka dhamaantood la siin doono ku tilmaamay in ay noqon doonto farxadda ciidda sidaasna waxa uu wasiirku ku sheegay maruu waraysi gaar ah xafiiskiisa ku siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland la arko in ciidankii haybadii militarinimo haybadii qarannimo ay wada gaadho oo nin walba kii xabad ka helaa waa nasiibkii kii laba ka helaa waa nasiibkii wax nasiibkii iska yimina maaha waa wax qiimeyn lagu sameeyay wax diraasad 6 bilood la waday oo laba goor lagu noqday marka la dhameystiray bay ka soo baxday natiijada tanu waxaanu rajaynaynaa in farxadda ciidda farxadda darajaduna ku xigto dhinaca kale waxa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ka dhawaajiyay in wax qabadka muuqda ee xukuumaddan hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo aanay ka mashquulin doonin aflagaadooyinka iyo caayaha ay soo jeedinayaan dadka qaar sida wasiirku u dhigay wuxuuna sheegay in arrimahaasi ka sooman yihiin oo aanay afka u furaynin wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya mar kale waxa hadaladiisi kamid ahaa waxaan rajaynayaa in ducada iyo rajadaada Ilaahay taqabbalo bifadli shahr al-kareem oo ramadaana annaguna waxaan leeyahay Allahumma inni saa'imo waqtigan waanu joojinaa inaanu cid la caytano ramadaan gudaheed iyo inay hawshayada iyo waxa aanu qabanayno ay naga daayfargareeyaan oo naga mashquuliyaan wax aan ummadda maslaxadi ugu jirin ma doonayno waxaan leenahay Allahumma inni saa'im wax walbana soomku maaha yani raasidka kaliya ka soonto maaha wax badan inaad ka soonto weeyaan Abunil Axmed Cigaal Cabdi Kaahin